24 saac ee u dambeeyay DDS markii ugu horeysay taariikhda 31 maamul magaalo ayaa loo qabtay miisaaniyadda sanadka. Netanyahu Israa'iilna waxa uu weerar afka ah oo xoogan ku qaaday Zohraan Mamdaniga maayarka ka ah magaalada New York ee Mareykanka. Waa qodobada wararka maanta waxaan ahay Axmed Owga halkanina waa JTN ee soo dhawaada jaalayaal. Waa markii koobaad ee aynu hawada ku kulmayno maanta. waxaanu xusaynaa ugaas Cabdiraxmaan oo naga soo salaamay Hargeysa ee Somaliland, Cabdiraxmaan Samriye oo naga soo salaamaya magaalada Fiiq ee deegaanka Soomaalida, iyo Maslax Axmed oo naga soo salaamay Kismaayo ee Jubbaland, Soomaaliya. adiguna halkeed ka daawanaysaa wararka maanta? faalada noogu reeb, like dheh muuqa, share u dheh saaxiibada, subscribe tan hala dhaafin channelkeena YouTube ee JTN TV. aad baad u mahadsantahay. aan ku bilaabay Iran iyo Ukraine waxa isa sii taraya weerarada afka ah ee labada dawladood u dhaxeeya oo arrinta ku sii durkinaya aag dagaal ay isku qaadaan labada dhinac. qaarkood xubnaha xildhibaanada ee Iran ayaa maanta warbaahinta u sheegay inaanay Iran cafin doonin tallaabana ka qaadi doonto Ukraine kadib weerarkii Ukraine ee gantaalka ay ku dhufatay markabkii Iran ee uu ku dhintay halka badmaaxe, sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Abbas Araghchi shalayto. dhankiisa Zelenskyga madaxweynaha ka ah Ukraine ayaa la weydiiyay maanta miyaad ka cabsi qabtaan in Iran ay weerar idinku soo qaadi karto. Zelensky waxa uu iska soo jaray oo uu yiri Iran horey bay noo soo weerartay kolka ay Ruushka siisay diyaarado dagaal oo nagu tumay. qoladaas Iraniyiintu waa qolo xun oo aan la isku haleyn karin, wax walbana ayaa laga filan karaa mar walba. sidaas awgeedna waanu ka diyaar garownay maadaama aanu saacad walba ka filan karno weerar ay nagu soo qaadaan Iraniyiintu, ayuu yiri Zelenskyga madaxweynaha ka ah Ukraine oo isagu markan wada daandaansiga saasoo kalena isagu bilaabay weerarka oo shalayto Iran ka gubay markab badda dhexdeeda ku sugnaa. waxay noo soo socda deegaanka Soomaalida oo markii ugu horeysay 31 maamul magaalo loo qabtay miisaaniyadda sanadka. laakiin markan Israa'iil ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa weerar afka ah ku qaaday maayarka New York ee Mareykanka Zohraan Mamdani. weerarkan iyo dhaleecaynta Netanyahu ayaa jawaab u ah dhaleecayn iyo hadallo qallafsan oo Zohraan Mamdani uu ku weeraray Netanyahu isbuucii hore. Mamdani ayaa maalmo ka hor xafiiskiisa dhexdiisa isagoo ka soo hadlaya waxa uu ku tilmaamay Netanyahu in uu yahay dambiile dagaal oo xasuuqiyo iyo xadgudubyo ka dhan ah reer Falastiin ka galay, laayayna 10,000 oo dad ah oo ay ku jiraan 10,000 ciyaal ah. waxa uu Mamdani kolkaas carabka ku adkeeyay inaanay suurtagal ahayn oo aan laga sugaynin maamulkiisa New York in ay soo dhaweeyaan Netanyahu Sebtembarta soo socota oo uu magaalada Netanyahu u tagi doono inuu ka qayb galo shir caalami ah. Mamdani waxa uu si kulul ugu dhawaaqay in maxkamadda dambiyada adduunka ee ICC oo iyadu baadi goobaysa Netanyahu ay xidhan Netanyahu kolka uu cagaha soo dhigo New York maadaama tabartoodu waa isaga iyo maamulkiisa New York aanay gaarsiisnayn oo aanay xidhi karin Netanyahu. Benjamin Netanyahu is a war criminal, the architect of a horrific genocide against the Palestinian people. He is responsible for the killing of more than 73,000 people, for the maiming of tens of thousands of children as those who survive undergo amputation without anesthesia, for the targeting of neonatal hospitals and maternity care centers, denying newborns even the chance to live, for the countless people he starved as he blocked food and humanitarian aid from reaching them. hadalka weerarka ahaa ee uu Mamdani ku qaaday Netanyahu waxaanu ka sameynay hadda ka hor maalmo ka hor warbixin, waxaana idin soo dhigaynaa qaybta description muuqaalkan oo aad ka soo daawan kartaan. dhankiisa Netanyahu ra'iisul wasaaraha Israa'iil oo shalayto la hadlay telefishinka Fox News ayaa Mamdani ku tilmaamay nin cuqdadaysan oo cunsuri ah, kalena faquuqaya diimaha iyo dadka, iyo inuu yahay nin xag jir ah oo ay ku dheer tahay waxa uu ku sheegay cunsuriyadda iyo nacaybka islaamku u hayaan Israa'iiliyiinta. And I think that tells you that the whole thing that the mayor of New York is basing himself on, this criminals, bogus charges, that's what he's using, and look at what he's doing. He's fomenting hate. He's supposed to be the mayor of all New Yorkers.
Jews, Christians, Muslims, everyone. But he's trying to turn one group against the other, and he's foisting hate and fear. I speak to Jewish Americans in New York, and they're afraid right now. And I don't think it's accidental that after he made this hate speech against Israel and against me, the next day, a Jew is stabbed coming out of a synagogue. I think, and with a cry of Allah is Akbar, Allah Akbar. And you know what that means. So labada nin waa Netanyahu iyo Mamdani waxa ka dhex caloosan dagaal salka ku haya diin iyo mabda. Dagaalkan iyo dhaleecaynahan afka ah ee ay isku turturayaan ayaana gaadhay halkii ugu sarreysay, waxaana la kala saftay labadooda taageerayaashooda iyo ururada diimaha ee kala duwan oo mid waliba waxa jira kooxo taageerayaal u ah oo dagaalka afka ah dhankiisa kala xajinaya, warbaahintana la isku marinayo. xaaladaasi waxay ku dambaysana wararka dambe ayaynu ku soo qaadan doonaa. markana DDS deegaanka Soomaalida maamul magaalooyinkii ugu badnaa taariikhda deegaanka ayaa markii ugu horeysay loo qabtay miisaaniyad sanadeed 100 milyan ah. golaha lixaad ee baarlamaanka DDS oo maanta isugu yimi kalfadhigoodii 11aad ahna midkii ugu dambeeyay ee golaha lixaad ajendayaasha hor yaala waxaa ku jira ansixinta miisaaniyadda sanadkan 2019 ee deegaanka Soomaalida. miisaaniyadaas waxa ka mid ah miisaaniyadaha maamul magaalooyinka ee sanadkan waana maamul magaalooyinkii ugu badnaa taariikhda deegaanka Soomaalida ee loo qabto miisaaniyad kolka laga reebo 6 maamul magaalo ee jiray hadda ka hor ee kala ahaa Jigjiga, Goday, Dhagaxbuur, Qabri Bayax, Qabri Dahar iyo Wajaale. 25 maamul magaalo oo cusub ayaa ku soo biiray sanadkan oo ah maamul magaalooyinka cusub ee deegaanka Soomaalida. waxayna kala yihiin 25 maamul magaalo ee ku soo biiray 6 maamul magaalo ee deegaanka Soomaalidu lahaan jiray tirada guudna ka dhigaya 31 maamul magaalo. waa maamul magaalooyinka magaalada Lafaciise, magaalada Harta Sheekha, magaalada Bariisle, Shabeelley, Erar, Marmaarsa, Awaare, Gaashaamo, Gunagado, Dhagaxmadow, Garbo, Qalaafe, Dhanaan, Hargeelle, Raaso, Shilaabo, Sheegoosh, Wardheer, Galaadi, Mirqaan, Yacub, Fiiltu, Doolacado, Fiiq iyo Mooyaale. dhammaan maamul magaalooyinkan ayaa lagu ansixiyay kalfadhigii 9aad ee baarlamaankan lixaad ee qabsoomay 12 bilood ka hor. ilaa 12 ajende oo kale ayaa doorkan hor yaala baarlamaanka lixaad ee deegaanka Soomaalida kalfadhigiisan gunaanadka ah ee 11aad. ugu dambayna Jaalle waxaad ogtahay waxaadan ogeynba wax ku khuseeyo waxaan ku khuseyninba ayaan suuqa soo xidha halkan kuugu soo gudbiyay ila soco like dheh muuqa la wadaag saaxiibada subscribe tan hala dhaafin channelkeena YouTube ee JTN TV. aad baad u mahadsan tahay tan iyo wararka xiga.